Ukugalka wasaaradda beeraha ee deegaanada biyo-shubka ee Abaarso iyo Farweyne ayaa waxaa ku wehelinaya khubaro caalami ah oo ka socota wadamada Denmark iyo England. Waana mashruuc wasaaradda beeruhu dabada ka riixayso oo salka ku haya qorshaha horumarinta qaranka ee dhanka beeraleyda oo lagu qiimeynayo goobaha suurtagalka ah in lagu hakiyo biyaha guga ee xooggan ee ka soo rogmada inta badan buuraha oo sababa caraguur ay ka dhasheen jeexjeexyo saameyn tolmoon ku yeeshay beeraha deegaanada qaarkood iyo dhulka daaqsinka ah. wasiirka wasaaradda beeraha mudane Faarax Cilmi Geedoole ayaa TV-ga qaranka uga warramay sida ay wax uga qabanayaan dhalan rogga carrada iyo mashruucan ujeedadiisa. maanta waxaa ujeedada halkan aan u waxa weeyaan waxaanu sameynaynaa survey aanu u sameynayno surveygaas oo sameynayno mashruucan horumarinta fankan lagu horumarinayo Somaliland oo ah ninkan cadeena la socda waa consultant waa ninkii loo soo inuu hawshan proposal-ku sameeyo oo diyaariyo qaabkii loo xiri lahaa biyaha halkan waa halkii biyuhu ku kala weecdaan biyaha tagaya Hargeysa iyo kuwa xaggan Gabiley u noqonaya waa bartanka dariiquna halkan ku weecdo kii abriil tagay marka waxaan doonaynaa 4 qaybood oo 4 laamood oo biyaha dooxa Hargeysa tagay ay ka bilaabmaan inaan 4 shaqada ka bilowno marka bartan waxay noqonaysaa halkii horteenu waxay noqonaysaa halkii ugu horeysay ee laga bilaabi lahaa mashruuca ka bilaabi lahaa mashruuca hadda ma bilaabo maayo laakiin inka survey-ga baan sameynaa ilaa bisha 3aad ee sanadka soo socda waxa lagu jiraa daraasad. dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada deegaanadaasi ayaa iyagu u heelan inay dhulka tabac galiyaan balse ay ka maqan yihiin aqoontii xirfadeed ee faa'iidada u lahayd deegaanka sida bacriminta carrada iyo ka faa'iideysiga biyaha qulqula waana sababta ay u sii kordhiso mushkiladaha kala duwan ee deegaanka wax soo saarka. agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ayaa sheegay in yoolku yahay sidii dadka beeraleyda iyaga loogu tababari lahaa xirfadaha la xiriira deegaanka ay ku nool yihiin. ina u diyaar garoodaan mashruuca ina ka shaqeynaysan marka ka shaqeysan lacagna waa ku qaadanaysan beertaadina waad xidhanaysan xoog kalena waad ku darsanaysan waxa kaloo la idin doonaa tababar ku saabsan qaabka loo xidhayo beeraha oo aanaynu mar dambe gacan bilaadan wax ka sugayna marka mar lagu xidho aad barato cilmiga ilaa ubadkiisa aynu iska dhaxal cilmiga halka ka barataan oo aynu dhulka ku xidhano. deegaanada jiidaasi Farweyne oo ah dhul leh carro ku habboon beeraha ayaan kayd wax ku ool kala harin biyaha baaxadda leh ee guga waana amuurta dhiirigelisay qiimeynta wasaaradda beeruhu ku doonayso inay ka samayso dhulkaasi biyo xireenno kala duwan iyadoo mashruucaasi la filayo inuu si rasmi ah uga hirgalo deegaankaasi 4 bilood kadib muddo ku siman. labadan gabi ee aan dhex taaganahay waa barta uu ka bilaamo dooxa weyn ee magaalada Hargeysa dhexmara waana goobta laga bilaabayo biyo xidhka iyo caraqabatinka deegaanada ku xeersan ee ku yaala deegaanada biyo shubka ah ee Farweyne iyo deegaanada soo raaca maax Cabdilaahi Cabdi Cabdinuur Aboorey Aburiin.